waxa uu u muuqdaa arday leh mustaqbal ifaya haddii uu helo dhiirigelin iyo maalgelin. ardayga kalena waa dhiirigelinaysaa, isagana waa dhiirigelinaysaa, laakiin qofka haddii hibadiisa laga hoos qaadin asagana hibadiisa waa dhimanaysaa, kuwa dambana hibadooda ma hagaagayso. oo waxa hadda dadka hibada ka dilay tallaabo wanaagsan waaye. markii ugu horreysay barnaamijkan ay soo sheego aad runtii aan ugu dhiirigeliyaa anaga iyo tiimka ardayda Soomaaliyeed in dadka hal abuurka leh oo yacni la dhiirigeliyo. Maxamed Cabdulle Maxamed waa hindise soo saaray diyaarad helicopter oo uu tijaabadeeda ku guuleystay. waxa uu aaminsan yahay haddii uu helo hiile iyo garab in uu samayn karo helicopter oo ay dad raaci karaan. hadda tan dad ma kori karo oo mid iska yar, laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah mid dad kori karaan inaan sameeyo. haddaba maxaa ku dhaliyay Maxamed oo sanadkii labaad waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda maraya in uu sameeyo diyaaradan helicopterta ah? waxa igu dhaliyay inaan sameeyo horta dhowr arrimood. ta koowaad oo ah in markii hore hobigayga iska ahaa barnaamijkan in anigu mashiin mar shaqeynaa inaan mar u sameeyo oo waagii aan yaraa xitaa aan ku ciyaari jiray waxyaabaha maaragtay mashiiniska iyo waxyaabaha telefoonada iyo baabuurta yaryarka iyo waxaas aan ku ciyaari jiray macnaha ku hadaaqi jiray. imika Maxamed waa arday maraya semesterka afraad dhigtana jaamacadda Hormuud gaar ahaan kuliyadeeda makaanikada. inta aan ku guda jiray ka diyaarinta warbixintan xiisaha leh Mr. Maxamed waxaan u soo raacay jaamacadda uu dhigto waxaana kula kulmay Cabdimahad Abshir Caraale oo ah Hormuudka xafiiska akademiyada ee jaamacadda Hormuud. waxaana wax ka weydiiyay aragtida jaamacadda ee ku aadan hindisahan da'da yar ee sameeyay helicoptertan. hal abuurkiisa runtii uu ka dhabeeyay waana wax kamid ah qaybihiisa hal abuurka, waana wax muhiim ah runtii. aduu yarkan hadda maalgelin hore waa in mustaqbal aad u ifaya leh xaqiiqatan, sababtoo ah waa sanadkii labaad helicopter uu sameeyay. runtii meelaha bulshada baahida ka jirtayna hadda kamid tahay. anaga wax kasta oo loo baahan yahay waa la soo dhoofiyaa, waxay doonaan ba ha ahaadaan, xitaa waxyaabo Soomaaliya laga helaa la soo dhoofiyaa. waxay marka naga saaciday haddii uu investment ama maalgelin uu helo waxaa u sahlan qof diyaarad sameeyay baabuur uma naxayo uu samaynayaa macnaha dhib kuma aha, culays kuma aha. marka wax soo saarka wadanku ka qayb qaadanaa, haybada iyo sharafka ganacsiga Soomaalidu ka qayb qaadanaa, wuxuu ka qayb qaadanaa himada ardayda Soomaaliyeed ee aaminsan inaan waxba lagu baran dalka. waa runtii waa bias ama hadal aan sax ahayn. ninkan Soomaali weligiis meel ugama bixin, jaamacadda Hormuud weligiis meel ugama bixin, ma qalin jabin oo waa semesterkii afraad sanadkii labaad oo hadda yahay. waxyaabo badan ay caddayn u tahay. Maxamed waxa aan weydiiyay intaan wada joognay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay in uu sii wadi doono sameynta diyaaradahan helicopterta ah iyo in kale. si wanaagsan aad u rajoonayo insha Allah inaan sameeyo midaan ka sii weyn oo ka sii balaaran. ma rabo inaan halkan ku joojiyo macnaha waxaan rabaa sidii aan u bilaabay inay noqoto insha Allah aan sameeyo kuwa ka sii wanaagsan tan ilaa heer aan gaaro macnaha inaan injineerada macnaha oo waaweynka oo sameeyo diyaaradaha caalamiga insha Allah inaan ku biiro insha Allah oo Soomaaliya waliba anoo Soomaaliyeed ku faanay insha Allah iyo islaamnimadeeda. sidoo kale maalmahan ku guda jiray diyaarinta warbixintan waxaan la kulmay gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed Jalla Maxamuud Aadan Muumin oo si dhow ula socday hal abuure Maxamed Cabdulle. waxa uu sheegay in aqoon-yahanada iyo ganacsatada looga baahan yahay in ay qaataan oo ay ciyaaraan doorkooda oo ah in lagu sii dhiirigeliyo hal abuure Maxamed sameynta diyaaradan helicopterta ee uu tijaabadeeda ku guuleystay. والله محمد wuxuu bandhigay waxyaabo muhiim ah oo ardayda Soomaaliyeed ku dhiirigelinayay in ma garanaysaa hal abuurkooda hore u kaco. tallaabo wanaagsan oo muhiim waaye in qofka isku dayiisa la sii dhiirigeliyo. ardayda Soomaaliyeed iyo dadka aqoonyahanka doorkooda ku aadan waxay tahay marka dadka hal abuur kale ay wax isku dayaan in la dhiirigeliyo, sababtoo ah haddii qofka bulshada markaas uu ka tirsan yahay uu qiimeeyo qofka qiimo yeelanaya, haddii laakiin anaga aan qiimo dilno qofka wax qiimo yeelanayo. marka sidaas darteed waa inaan dhiirigelinaa hore u socodleenaa tallaabo wanaagsan aan sameysay. annaga ardayda Soomaaliyeed haddii aan nahayna meel kastoo aan joogno garabkaaga aan nahay, wax kasta oo sameysid oo teknolojiyadda iyo makaanikada ku saabsan waan kugu dhiirigelinaynaa. maxaa ka dhiman hal abuure Maxamed oo uu tabayaa si uu u sii wado hal abuurkiisa ku aadan sameynta helicopteriskan?
هذا ما استعمل قادر wax badan ay dhiman oo hadii aan helana aan hor socod noqon kara oo aan micnaha meesha meel ka wanaagsan si gaari kara isla waxa kale micnaha meesha ku jira dhiirigelin qofka la dhiirigeliyo waxa markuu sameeyo la yiraahdo waa wanaagsan tahay garab qabadna uu ka helo bulshada oo micnaha dadkii kugu taakuleen waxa hadda markaan sameeynayo kala barnaamijyadan inkastoo aan tikaayay doono haddana waxyaabaha markaan aan barnaamijkan galay waqti dheer u qaatin aan micnaha helo qalabka marka waxa muhiimka waxa weeye oo baahida ugu weyn ah in la helo isaan helo horta dhiirigelin dan qalabkii wax ku sameyn lahaa maxaa xigi doona maxamed oo hadda ku guuleystay tijaabada diyaaradda helikabtarka ah ee uu sameeyay insha Allah wax isla xigi doona wax tan ka sii balaaran oo ka sii weyn oo micnaha ka sii manfaacad badan oo ka sii awood badan hadda tan dad ma kori karo oo mid iska yar laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah mid dad kori karaan inaan sameeyo waxa hubaala in uu waqtigu isbedelo maxamed diyaaradan hadda uu soo bandhigay waa tii saddexaad oo uu sameeyo tii koowaad waxa uu ii sheegay in tijaabadeedii uu ku guuldareystay tii labaadna kaliya ay soconayso aynan duuleynin middan maanta aad indhihiina ku aragtaanna waa tii tijaabadeeda uu ku guuleystay oo inta ay kacda hawada sidaas u dul heebaabaysa wuxuuse u muuqdaa arday rajo wanaagsan ka leh barashada kulliyadda makaanikada iyo sameynta diyaaradaha helikabtariska وعبد القادر عمر عبد اللفيدك وده مقالة عاصمة ده مقدشة تلفزيون كصومالي كيبل